السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan soo dhawaada gabdhaha igu xiran iyo dhammaan channelka asxaabta iga xiran. waa mar kale iyo muuqaal cusub aadnan iga baran, laakiin waxaan rabaa insha Allah muuqaalada noocyadan camal ah channelka in aan igu soo kordhiyo si adinkana markasto firfircooni aa u dareentaan oo mar walbo waxyaabaha qaarkiis aan isku dhinac wadno sida cuntooyinka caruurta iyo waxyaabaha aan isdhihi karno waxyaabo faa'iido ah ayaa niigu jiro. maantay insha Allah miiska waxaa noo saaran arinta qaaliladan iyo Raaga Cabdi. waxaan rajeynayaa dhammaantiina in si wacan fikir saliim ah aad uga baxsataan. markasto afkaarta wanaagsan waxay ka qayb qaadataa waxyaabaha bulshada lagu dhiso ayay ka qayb qaadataa, laakiin mar walba oo aad aragtid waxyaabo xunxun in media la isku adeegsanayo dhinac ayaa laga maraa, dhinaca fiican ayaana laga fiiriyaa markasto. ugu horeynta daa igu cusubtiin marka soo dhawaada. waxaan aniga nafteyda iyo adinkaba aan igu hambalyeeynaya oo nafteedana aan ugu hambalyeeynaya 16,000 ayaan xirnay. maasha Allah tabaaraka raxmaan. mahadoo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa iska leh. kadibna adinka oo ila dadaasheen oo siiyay views daawasho qurux badan, dhammaan waxyaabahaas oo dhan adinka ay kala qayb qaatay. waxaan rajeynayaa channelkan maanta meeshuu taagan yahay meel ka wanaagsan in aad geysaan oo aan isla dadaalno. soo dhawaada marka hadaa ay u cusub tahay subscribe isaar, ha ka tagin channelka adoo subscribe dhihin, like gareyna muuqaalka siin share garey. dhammaan gabdhaha iyo mahad celiyana dhammaantiin waxaan leeyahay mahad celinteena quruxda badan waan arkay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaalmarin badan oo qeyr ku jiro hanaga siiyo. intaas kadib Raaga Cabdi kulli ana horta wax weyn uma jeedo oo nin iyo naag mar walba way kala tagi jireen oo wax hadda ku cusub ma ahan. Soomaali ka ahaan wax nagu cusub ma ahan. weligiisuna nin rag ah markii uu dumarka yacni gabar uu qabo wanaag badan ka dhaxeeyay ay kala tagaan weligiisu ma seeri jiray. mid aan rabaa inay ogaataan marka gabdho, markii adiga aad tahay qof yacni dadnimadiisa hormariyo, qof dhan walbo ka wanaagsan, qof kartidiisa iyo caqligiisa iyo meeshuu taagan yahay u qalmo misana horumar wanaagsan sameeyo. horumarka ma ahan kaliya in la shaqeysto, horumarka waxaa kamid ah qoys markii la yahay qofka kula nool qaabka aad ula dhaqmaysid marka uu yahay qaab wanaagsan oo qofkan uu kuu soo xiisi karo kale. beri ka maalin markii aad kala dhamaataan oo calafkiina halkaa uu ku ekaa, qofkaas wuxuu noqon doonaa qof in badan aan ka maarmi karin oo waxyaabo badan mar walba isku qaso, kontaroolkiisana uu yaraado. marka aad ogan horta waxaan ugu faraxsanahay maadaama mar walba niyada ay iga guba jirtay oo yacni qalbiga aan ka guba jiray oo mar walba aan isdhihi jiray gabdhaha Soomaaliyeed maxaa waaye ficilada ay sameeyaan qaababka qaldan mar walba ay meelaha la soo fariistaan ama ha ooyaan ama hadii kale maskaxiyan xitaa dhibaataha u soo gaarto, waa maxay sababta ay u sameeyaan aan isweydii jiray. laakiin Ilaahay mahadiisa waxaa ah in ay ku jiraan dumar dhan walba ka dhisan, caqligooda fadhiyo, ka fiirsado markii nolol ay bilaabayaan waxyaabo badan ka fiirsado, sida inay naftooda horumariyaan, in ay mar walba qofka ay la nool yihiin ay uga dhigaan markasta qof uusan ka maarmi karin qofkan kale oo dumarka ah oo qalbigiisa ay degaan. taas horta Ilaahay mahadiisa ah. dumarka markasto waxyaabaha aadka ugu fiican ayaana kamid ah in ay noqoto qof mar walbo aan laga maarmi karin, meel walbo oo la istaagan ayada lagu hadal hayo. taas ayaana aad u weyn u wanaagsan. gabdhahana waxaan rajeynayaa in ay qaaliladan ay mar walbo ay ka arkaan dhaqamada ay sameeyay, sababta ka dambeyso in sigeedii hore uu yacni hadda uu maseero wiilkan kale oo ayada hadda ay keensatan uu xagxagto. sababtaas in ay ogaadaan sirta ku duugan. sirtan horaan ayuu soo sheegay markasto noqda gabdho dantooda yaqaano. aniga horesaan igu sheegay, haddan aan igu sheegayo wax weyn meeshan uga mid jeeday kaliya waxaan uga jeedaa gabar
karti badan caqli badan maanta taqaano wixii ayada danteeda ku jirto in ay meeshaan taagan tahay oo ayada la isku haysto ayaan u jeedaa dadka qolalka soo furanayo u jaafeenayo oo mar walba waxyaabaha xunxun ku tilmaamayana waxaan leeyahay ilaahay uga baqa qofka muslimka ah waxaysan ahayn laguma tilmaamo waxaadnan ogeena ha ka jawaabenina oo anaga mar walba waa inaan ka qayb qaadanaa channelkeena waxyaabaha musuqmaasuqa bulshada ku hayo waxyaabaha ay mar walba nafta iyo jirkaba markasta ay u baahan yihiin in laga dhiidhiyo waa in aan ka hadli karnaa waa in waxyaabaha wanaagsanna aan ka hadli karnaa si hooyooyin badan ay mar walba dhiirigelin ay ugu noqoto asbaabta asaaka muuqaalkan aan igu soo duubayo waxa waaye waa gabdho badan aan ogahay inay igu xiran yihiin gabdho badan oo waxaan ogahay qaarkood xaasas ah qaar aan xaasas ahayn inay igu xiran yihiin kuwaas ayaan rabaa dhiirigelin inay u noqoto gabadhan mar walba qofka waa nafteeda inay ku filan tahay labada qof liskuma tolin labada qof mar walba yacni cimrigooda inay isku koobnaanayaan cid og malaha marka qof kasto waa qofka dhinaciisa inuu ka xajiyo intaa يعني nolosha la midoobayo dhanka wanaagsan loo fasirto waxyaabo wanaagsan la sameeyo oo xumaanta la iska reebo gabdhaha mar walba dhibaatooyinka gadaal ayaga ugu soo laabtaan laakiin hadda cashirka qaaliladan waxaan ka baran karnaa in gabadhu ay noqoto mid danaheeda ku filan waxyaabaha danta aan ugu jirinna dhan iska mariso oo gees iska mariso danteedana ay fiirsato haday shaqaysaneedo haday nolol kala samaysaneedo hadii waxyaabaha ayada yacni horumarka ay u aragto ay sameynayso ay yacni ay ku guda jirto in ay meel ismariso marka gabdho cashir hanay noqoto walaashina wax ka barta dadkana mar walbo يعني waxyaabaha xunxun lagu dhiiranaanin in la sameeyo gabar kasto oo marwo ah iyo gabar kasto oo aan marwo ahaynba waxyaabo wanaagsan waa in ay la timaadaa si nafteeda iyo nafta ilmaheeda iyo dhammaan reer haday markaas ku jirto ay horumar u gaarsiido gabar jiracsan ama hadii kaleeto danteeda aan aqoonin ama waxyaabaha danta aan ka soo galeynin yacni mar walba ku fogaato cid rabta malaha bal ayadaaba isdhibsaneedo markii adiga inta calafkiina uu dhamaado meeshaas aad ku kala tagtaan inta aad noqo lahayd mar walba ilmahaaga aad gabaad ka dhiga lahayd oo ninkii mar walba aad ka daba ordi lahayd waxaa haboon aniga ka ahaan in adiga laga daba ordo oo markasto adiga ay noqoto qofka la saaro mudnaanta oo meeshay cagta saarto meeshay aado mar walba la raadiyo aad noqotid qof aan la heli karin noqo qof aan la heli karin aan la qiyaasi karin markastana ayada oon mar walba ay noqoto indhaha bulshada ma fahamteen gabdho waxaan rajeynayaa in talooyinkaas wanaagsan aan soo gudbiyay iyo waxyaabaha aan ka baran karno gabdhaha wanaagsan in ay noo noqdaan waxyaabo mar walba nafsadeena aan ku dhiirigelino meesha ka kaca gabdho noqdo kuwa nafsadooda wax u qabsado noqdo kuwa oolaadooda guriga ay ku nool yihiin hadii yacni xaaji ay leeyihiin oo kaleeto dhammaan horumar nafsiyan ahaaneed gaarsiiyo ma fahamteen ha noqon mid jilacsan isku oydo danteed magarata ah meelaha iska fadhiso ha noqonin waan kaaga digayaa in sidaas aad noqotid marka halkaan aan ku ekeenayaa fiidiyoga please share noogu qabta oo ugu yaraan qof walbo 3 qof ha u share gareedo like tan ayaa laga tagin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii fikradiina ahna qaybta hoose oo commentiga nagula soo wadaaga